midna waa looga raaxeeyey nolosha adduunka isaga qofka iimaankana markuu dhimanayo tacabkii adduunyada waa looga raaxeeyey gaalku marka uu dhimanayo ama mujrimku markuu dhintana isagana makhluuqii oo dhan baa ka raaxaysto waa laga raaxaystay fircoon markii ilaahay uu ka warramaya halaagiisa waa kii lahaa famaa bakat calayhim alsamaa'u waalard wamaa kaanuu mundariin baa ilaahay yidhi fircoon iyo ciidankiisa samadana loogama ooyin dhulkana loogama ooyin waayo maadaamuu nin gaala ahaayo duqyaan badnaayo kibir badnaayo qooq badnaa camalkaa xun uu samaynayay adduunyada dhib buu ku hayay markaa dhimashadiisii cidna kama ooyin baa ilaahay yidhi amaa muuminka waa loo ooyaa qofka muuminka waa loo ooyaa sidaa darteed dunuubta dadku ay samaynayaan baa dhibaatada ay ku sugan yihiinna soo jiidaysoo keenaysa laa taqacu almusiibatu ilaa bidanbin walaa turfacu ilaa bitawba bay culimmadu yidhaahdeen musiibo ummad kuma dhacdo ilaa dembi iyaku ay galabsadeen bay musiibadaasi ay ku dhacday ummad ilaahay balaayo haysata kama faydin ilaa toobad baa ilaahay ummadda kaga faydaa toobad inay toobad keenaan atawba waa maxay inuu qofku ilaahay u soo noqdo dembiguu ku jira inuu ka soo dhex baxo inuu ilaahay u soo noqdo dembidhaaf ilaahay uu weydiisto markuu qofku ilaahay u soo noqdo toobad keeno ayaa qofka ilaahay noloshiisa u hagaajinayaa imaam ashaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaabuu u tago uu la fadhiistay ninkii uu waraystay markaa wuxuu yidhi waa maxay dhibaatada adiga ku haysata murug baa kaa muuqatee masiiba igu dhacday buuhi nin masiiba ku dhacday baan ahay buuhi oo dhibsanahayn wuxuu yidhi dadkaba masiibadu way ku dhacdee waa maxay ta adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi aniga tu gaara igu dhacday haysato dadka kale waa ka duwanahay buuhi masiibada maxay tahay adiga kuu gaarkii wuxuu yidhi dadkii iyo aniga ayaa kala baxnay buu yidhi oo cid aan la heshiisahay ma jirto hooyaday aabbahay waan kala dhaqaaqnay reerkaygii ilmahayga waan kala dhaqaaqnay jaarkaygii waa kala dhaqaaqnay qaraabadaydii waan kala dhaqaaqnay cid aan la heshiisahay haba yaraatee ma jirta buu ku yidhi marka culammadu firaaso wax la yidhaah bay lahaayeen ittaquu firaasata almu'min fa innahu yaraa binuuri illaahi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muuminku wuxuu leeyahay nuur qalbigiisa uu wax ku arkuu leeyahee iska ilaaliya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam imaamkii wuxuu gartay ninkani in xagga ilaahay ee isaga xidhiidh uu ka go'an yahay buu gartay hal su'aaluu markaa weydiiyey uu mashkiladiisii oo dhan ku xalliyey waa maxay su'aashaasi wuxuu ku yidhi waryaay dhegayso 100 qof inaad hal mar raalli gelisaa iyo qof keliya inaad raalli gelisaa bal kala dooroo kala sheeg markaasuu ku yidhi dee midka keliya ila fudud waxaa markaa baa lagu yidhi weliba midka keliya hadduu adiga raalli kaa noqdo ood isaga raalli gelisid 100ka kale isagaa kaa raalli gelin baa lagu yidhi markaasuu yidhi midkaasi waa midkee buu yidhi markaasuu yidhi waa allah weeyaan markaasuu ninkii wuxuu yidhi sheekh wallaahi meesha layga haystaad ii sheegtay buu ku yidhi nolosha aan fahmi lahaa iyo cidhiidhiga aan dareemayey iyo muqaatacada dadku ay igooyeen oo dhan waxa u sababa waad ii tilmaamtee aniga iyo rabbigay xidhiidhkii naga dhexeeya baa meesha jirin buu yidhi jazaaka allahu khayr buuhi marka halkiibuu ninka ku toobad keenay haddaan doonayna inaan ka baxno dulliga iyo ciriiriga iyo dawarsiga waad ogtihiin dadkeennu dawarsi bay ku jiraan maanta soomaali haddaan nahay dad adiga dadnimadaada kaa hooseeya maanta wax kuu yeedhinaya oo ku maamulaya oo kuu talinaya waana min calaamaati saaca nabigeennaa sheegay sala allahu calayhi wasalam idaa tukhida alfayu duwala waalamaanatu maqnama waalzakaatu maqrama watucullima ligayri اddiin waataaca arajulu imra'atahu wacaqa ummahu waaqsaa abaahu waadnaa sadiiqahu wakaana zaciimu alqowmi ardalhum wasaada alqabiilata faasiquhum ilaa aakhir alxadiis 15 khasladood buu nebigu xadiiska uu ku sheegay uu yidhi ummaddaydu 15 calaamo markaad ka aragtaan balaayadaa ummaddayda ku dhacday ogaada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in yar baan ka taaban inkastoo wakhtigu nagu kooban yahay
waxau nebigu yidhi diwal waxaa la yidhaahdaa waa hantida guud ee ummaddu ay leedahay dad gaara markay danahooga u isticmaalaan kii ammaano loo dhiibtayna ammaanada dad u dhiibtay inuu markaa khaniimo u timida intuu iska arko uu iska isticmaalo kii sakada dhiibayeyna sida dayn lagu leeyahay markuu sakada u dhiibo waxaan diinahayna dadku markay bartaan waxau nebigu sheegu yidhi iyo marka uu ninku haweenaydiisa u adeeco hooyadiisii dhashayna uu iska dheerayuu caaq ku noqdo waan idinkaaruu ku noqdo xaaskiisana uu dhaga nuglaan hadalkayga iyo amarkayga hooyadiisii dhashayna maaragtaana idhaaq buu odhanayaa aabbihiisii dhalena uu iska dheerayn buu nebigu yidhi saaxiibkiisana uu soo dhowayn wa kaana zaciima alqowmi ardaluhum qowm walba markuu hoggaanka u qabto kooga ugu liita buu nebigu yidhi ugu liita wasaada alqabiilata faasiquhum qabiil qoom waa dadka af keliya ku wada hadla wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay qoom macnaheega qoom macnaheegu waxa weeyaan waa dadka luqa keliya ku wada hadla waa qoom walba markuu hoggaamiye buu nebigu yidhi kooga ugu liita wasaada alqabiilata faasiquhum qabiilkuna waa reerkii weeyaan waa jufadii hoose ayakuna markay talada u dhiibtaan kooga ilaahay ka fog ee bilaa cibaadada ee bilaa taqwadda waxaasoo dhan buu nebigu sheegu inoo tiriyey waa min calaamaati saaca buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummad cidhiidhiga iyo dulliga iyo dawarsi kama baxayso ilaa ilaahay u soo noqoto mooyaane camalkeennaan badilaynaa nolosheeda ilaahay isagaa badili markaas waa cuquubo caaba muslimiinta o dhan haysata maanta cuquubo caama weeyaan oo muslimiinta caam ahaan oo dhan ku dhacdo ku habsatay markii kitaabkii ilaahay jalla wacala laga tegey ee sunnadii nebi maxamedna laga tegey ayaa cuquubadaas inagu dhacday maanta وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونحن النبي محمد يربى إلى هاي النوشة في سورة الفرقان إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب قوم كيجي وريرك النبي محمد وكرد شيء ويا قوم جسوا عرب وحي كيشن كتابك إله جاز نقا كي سيبك هجرودين برشدي سيبك هجرودين isku xukunkiisii bay ka hijroodeen ka shaqayntiisii bay ka hijroodeen kii qur-aanka baranayana waa wadaad bay yidhaahdeen macallinkii ilmaha qur-aanka u dhigayeyna waxaa lagu yidhi macallin ciyaalka maxaad bartaa adug qur-aan yar unbaad bartaaye waa hooyo ardaygii markuu lacagtii uu dhiibi waayey madarasadda ayuu macallinkii dhowr jeer buu celiyey markaasaa islaantii aad u cadhaysan baa soo qabatay ilmahayga gacanta ugu timid ee macallinkii macallin ilmaha yar waad soo celcelisay maxaa u soo celcelinaysaa maxaa kaa qaldan markaas waxba igama qaldano lacagta ha bixiyo meeshanaan ku jiro waa kira weeyaan laydhkani waa lacag weeyaan macallinkani waa dad reeruu ka mas-uuliya dhagax iyo geed maaha waxuu reerkiisa siiyuu rabaa markaa bay ku tiri macallin waabaad isxariifinaysaa maxaad u dhigtaa bay tiri qur-aan yarun baad u dhigtaa qur-aan yar adi waa kula yaryahay qur-aanku laakiin u fiirso xadiiskii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam almaahiru bilqur'aan maca asafarati alkiraami albarara ardayga ama ninka sheekha ama gabadha saalixadda ee qur-aanka taqaana ee xuquuqdiisa iyo xuruuftiisa ilaalinaysa ku baratee ku xafiday maalinka qiyaamaha bini aadanka la soo bixi mayso waxau nebigu sheegay malaa'igta inuu qofkaasi la soo bixi doono malaa'igta qur-aanka u qaabilsan ee qur-aanka xafidsan ee cibaadada ilaahay ay ugu dhowaadaan ay tahay qur'aan ayuu qofka qur-aanka yaqaana uu la soo bixi doonaa marka ihaanada maanta muslimiinta caam ahaan haysata innaka halkaa isdhignay keliya waxaa la rabaa in ummadda laga helo tawba inaan ilaahay u soo noqonno toobadkeenno bini aadam baa nahoo dembi waa inaga dhacayaa laakiin ha quusanoo raxmadda ilaahay ha ka quusan haddaad adigu aad tahay ilaahay baa fii suurati ibraahim baa ilaahay ku yidhi wa aataakum min kulli maa sa'altumuuhu wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana ladaluumun kafaar fii suurati ibraahim baa lagu sheegay fii suurati naxlina ilaahay waxa uu ku sheegay
wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa waina allaha lagafuurun raxiim. sidaa inay aayaddu ahayd baan jecelahay. waa laba aayadood, xaggeeda hore aayaduhu waa isku macno weeyaan, laakiin xagga dambe labada aayadood macno kala duwan bay sheegayaan. aayadda suuratu ibraahim baan horta isdultaagiyo ilaahay baa yidhi wa aataakum min kulli maa sa'altumuuh, wixii aad i weyddiisateen eed niyadda ku qabateen eed jeclaydeen ee naftiinnu ay doonaysay, ama carabka ka sheegto ininku garta oo ilaahowna sii dhahada, ama ilaahayni abuuray baa ini yaqaana waxay niin wanaagsane ilaahay waa ini siiyey. wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa, haddaad isku daydaan ilaahay nicmaddiisa tiro inaad ku soo koobtaanna ma koobi karaysaan baa ilaahay yidhi. ina alinsaana la daluumun kafaar, insaanku waa mid dulmi geysta badan, kafaar weeyaanoo weliba waa mid nicmadda ilaahay inkiray oo nicmadda ilaahay qariyey. daluum baa tahay, daluum dulmi geyste, mid dulmigiisu badan yahay. mar keliya maa waxaa dulmi samaynayno, marar badan baan dulmi geysanaynaa. allihiinna abuuray baan dulminay, oo nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam xaqiisii baan dulminay, oo xuquuqdii waalidku lahayd baan meel kaga dhacnay, oo xaqii qaraabadeenna waan ku gafnay, oo xaqii reeraheenna iyo carruurteenna waan ku gafnay, oo xaqii jaarkeenna waan ku gafnay. mar walba waxaanahay kuwo gafaya baan nahay. marka adigu waxaa tahay mid dulmi geysta badan oo kafaara, oo ilaahay nicmadduu ku siiyeyna qariyey oo daboolay baa tahay. aayaddaasi xagga hore waa sidaa, xagga dambana waa sidaa. aayadda ku taalla fii suurati annaxli ilaahay waa kii lahaa wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina allaha lagafuurun raxiim. haddaad ilaahay nicmaddiisa aad isku daydaan inaad tiro ku soo koobtaan baa ilaahay yidhi ma soo koobi karaysaan. ilaahay rabbigiinnuna waxa weeyaan waa mid dhaafid badan oo naxariis badan baa la yidhi. rabbigiinnu waa mid dhaafid badan. dembi kastood gashaan haddaad ka soo noqotaan dembigiinna ilaahay wuu dhaafayaa. waa mid naxariis badanoo si kastoo naxariistiisa uga quusataan ilaahay jalla wacalaa waa idiin naxariisanaya. waxaad ogaataa addoonkanoo weeyaan macnuhu, haddaad adigu aad tahay kii dulmi geystaha badnaa, kii daalimka ahaa ee kafuurka ahaa, haddaad adigu aad tahay ha quusan buu ilaahay ku leeyahay. anigu rabbigaagiya waxaan ahay ghafuurun raxiim baan ahay, mid dhaafid badan oo naxariis badan baan ahay, ii soo noqo baa ilaahay ku leeyahay. ya bna aadam inaka maa dacawtanii warajawtanii gafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaalii. ya bna aadam low balaqat dunuubuka canaana asamaa uma istakfartanii lagafartu laka. ya bna aadam low aataytanii biquraabi alardi khataayaa uma laqiitanii laa tushriku bii shay-an laqiituka bimidlihaa makfiratan. xadiis alqudsi baa ilaahay ku leeyahay ina aadanow, marba haddaad adigu aniga aad i baryayso ood i rajaynaysid ood wejiga dhulka ii dhigaysid ood i baryaysid, dembigaad doontad in dembiga aad gasha intuu doonaba ha la ekaadee waan kuu dhaafayaa baa ilaahay yidhi. cid aan u aabbayeelayoon uga joogsanayna ma jirta baa ilaahay yidhi. cid odhanaysa yaa rabbi addoonkan waa dembiile maxaa dembigiisa u dhaaftay odhanaysa ma jirto. haddaad marba adigu aad muslim tahay ood muumin aad tahay oo ilaahay keligii aad baryaysid, keligiina aad rajaynaysid, dembiga kaa dhaca intuu doonay ha la ekaadee haddaad ka soo noqoto dembiga oo shuruuddii towbadda lagaa helo, ilaahay waxaan ku leeyahy dembigaa waan dhaafayaa. low balaqat dunuubuka canaana asamaa, haddii dembigaagu uu gaadho fadka samada ood istikfaar aad iga dalabto waa dhaafi baa ilaahay ku yidhi. low aataytanii maalinka qiyaamaha arlada muggeedoo gafa adigoo wata haddaad ii timaaddo, laakiin bishardi aad iigu timaadda adoo ii soo shariig yeelin, gefkaa aad la timida in la eg oo dembidhaafaa kuga iman baa ilaahay buu yidhi. shardi waa maxay? waa inaad tahay shakhsi muwaxidoo ilaahay rumaysanno. marka ilaahay naxariistiisa ka buusan mayno. waraxmatii wasicat kulla shay. dadka aan ugu yeedha naxariista ilaahay